dhammaan dadweynaha reer Coodanle dhammaantiin waa idin salaamaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waannu idiin mahadnaqaynaa, runtii aad iyo aad baannu idinku mahadnaqaynaa xafladdan qiimaha leh ee aad qabsateen ee annagana naga codsateen inaannu idinkala soo qayb galno. aad baannu ugu faraxsannahay. waxaa kale oo runtii aannu aad ugu faraxsannahay taageerada iyo cududda aa cusboonaysiiseen. awalba dee kulmiye waa ahaydeen, laakiin cusboonaysiin ayaa muujiseen maanta inaydaan wax idin soo dhex galay aanay jirin ee halkiinnii taageeradii ka haysaan. aad iyo aad baannu idinkaga mahadnaqaynaa. waxaan leeyahay waxaa jira ololaha iyo doorashooyinku marba heer bay maraan. beryihii hore o dhan waxaynu ku jirray in xusbiyo iyo xusbiyada qaranku yimaadaan oo ay magaalooyinka soo maraan oo la soo dhoweeyo. hadda waxaa dhammaaday soo dhowayntii xusbigii aadan ahayn. sababta waxaa weye doorashadii baa la gelaya. waa in degaan waliba hadda wakhtiga la joogo ku caddaadaa xusbiguu yahay. hadday soo dhowayn tahay iyo hadday cudud tahay iyo hadday cusbaan tahayba xusbiga uu yahay oo keliyabaa hadda hawshiisu muuqan doonta. waxaa looga jeedaa waxaa weeye degmooyinka dee qaarna waa la wada leeyahay oo xusbiyadaa wada leh, qaarna waa la kala leeyahay, qaarna waa laga shakiyaa. marka waxa weeyaan sidaa darteed bay noqonaysaa in qolo waliba halkay tahay isku caddayso. waxaan leenahay degaanka Coodanle waa xusbiga kulmiye. hadda laga bilaabo waa inuu kulmiye isku caddeeya. waa ku caddihiin laakiin ujeeddadu waxa weeye inay soo dhowaynaha iyo imaatinka iyo ololaa bilaabmaya. ololaha waa in xusbigii degmada lehina ogaadaa, kii aan lahaynina ka sabraa. sidaa weeye warku. marka xusbi qara weeye ha loo soo baxo waa dhammaatay. waxaa la gaadhay 30kii casho ee aan cid wax isugu jirin. marka taana waa runtii waa ku dardaarmaynaa, waa idinka rajaynaynaa. waxaa kaloo idiin sheegayaa guddoomiyuhu wuxuu inoo sheegay waxqabad magaalada Coodanle laga qabtay. waa run waxqabadkii Coodanle u baahnaa lama dhammaystirin, laakiin waxbaa la qabtay. runtii mugle baa la qabtay. bal waxaynu laakiin isweydiinaynaa waxqabadkaa goormaa la qabtay? waxaa la qabtay intii xirsi ka dambaysay ninka maanta codkaydii ka doonayaa 5 sannadood buu haystay dalka. riig lama qodin, xanaanno lama dhisin, saldhig lama dhisin. 5tii sannadood ee uu dalka hoggaankiisa ka midka ahaa ee awoodda ku lahaa Coodanle wuxuu u qaban waayey maantaan u qaban doonaa. dee waa cay. waxaan leeyahay dadkeennu waxay u yaqaaniin cayda in la yidhao abbaa iyo hooyadaa waxaa ku samee. taasu cay maaha. taas waa farriinoo qofka hadduu yeeliya hadduu diido dee isagay u taal. laakiin caydu waxa weeye qofka caqligaaga caaya, qofka garashadaada caaya, ee inaadan wax garanayn kaa dhiga, ee maalin walba hadal kuula yimaadda aan saxayn baa ku caayay. maanta degaamadan hadduu xirsi yimaado oo yidhaaho codsiiya wuu idin caaya. 5 sannadood oo dalku barwaaqo ahaa buu hoggaankiisa ahaa. waxba kama dhisin. 2dii sannadood ee ilaahay ka kaxeeyey baa intaa heshay. yaan marka garaadkiinna lacaayn, yaan caqligiinna lacaayn, yaan laydinla imanin waxaan run ahayn. miyaynu malaynaynaa oo sugaynaa in xirsi gaadho heerkuu gaadhay mid ka weyn? oo hadduu kaa wax ku qaban waayo muxuu wax ku qabanayaa isagoo xusbi mucaarada daba socda oo aan magaca ku lahayn? been yaynaan isu sheegin. marka nafteennana yaa been loo sheegin. yaan caqligeenna lacaayn, garaadkiinna yaan lacaayn. waa inuu qofku gartaa. waa inaad saxa iyo ilaahay wuxuu caqliga inoo siiyey iyo qalad ku kala garataa. waxaan leeyahay arrintaas waa qaldanta. haddii aan xusbiga waddani u soo gudbo, xusbiga waddani maanta isagoo cod dooraya oo wax inaga raba ayuu degaamadeenna wuxuu ku qoray xafiiska xusbiga waddani ee baha habaryoonis.
babaha habar yoonis baa loo codaynaya ma xusbi qaran baa loo codaynaya ninka maanta qorolugud ku dhigay baha habar yoonis miyaanu ii sheegin inaan habar yoonis mooyo cid kale jirin oo cid kale noolayn oo aan cid kale wax la siinayn maantuu wax doonaya buu ku qorto maalintuu waxaya muxuu samaynaya run aan isu sheegno waxa weeyaan cid waliba meel bay leedahay cid walba meel baa wax ugu jiraan yaa waxaan sax ahayn laynoo sheegin yaa waxaan sax ahayn laynaga dhaadhicinin yaan dimuqraadiyadda iyo wixii aynu doonayn inaynu qabyaaladda kaga guurno ee xusbiyada u samaysannay kulmiyaa layna yidhaahaa xusbiga kulmiye xusbiga waddani ee baha habar yoonis dee wax kaluu keenayba waa qabyaalad cad qabyaaladna maanta diyaar uma dhihin markaa waxaan leenahay xusbigiinna ku caddaada maanta laga bilaabo muhmilkii wuu dhammaaday inama laydiin soo diraa way dhammaadeen inama la yidhaaha tagacooda le waa u dhalateene oo meel ay marayaan caqligooda iyaga la caayay dee kuwa aqbali mayno marka waxa weeyaan aad baannu idinku mahadnaqaynaa aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin xafladda wanaagsan haddii waxqabad xaqiiqdii jiro ama cid waxqabad laga sugayana waxa weeyaan maanta kulmiyaynu ka sugaynaa kulmiye wuxuu war halkaa waa maxay dee waryaa hoy waar dee naga daaye waa maxay dhali oo qoladan maryaa cadaaday dee waaba rabshade ururkooda mooyaane maxay wadaan ma waddani hoosta ka iif waxa weeye waxaynu isu sheegaynaa aan isdhegaysanno yaraan isdhegaysanno maanta somalilan degaan baa u faana degaanka wajaale wey wajaale wuxuu yidhahaa biilka annagaa bixinna somalilan waxay ku bixiyaanna waa waddada laamiga ah ee soo marta iyo canshuurta etoobiya ka timaadda waxaan idiin sheegayaa kulmiya wuxuu ballan qaaday inay waddadii etoobiya ka imanaysay marto degaankan haddii codkiinna aad siisaan oo kulmiya degaankaa waa la yaqaannaa kaadhka laga qaatay degmada qorolugud waa la yaqaannaa codku markuu soo baxana inta la siiye kulmiya waa la garanaya been laysuma sheegi karo laysma xadi karo codkaagana waa la yaqaannaa intaad bixisayna waa la yaqaannaa maantana horumarku wuxuu marayaa in xusbiyadu ku xisaabtamaan degaankaa imisuu cod lahaa imisaynu hellay oo u ismuujiyo waddadaa kulmiya waa qoray buuggiisay ku taallaa 5 sannadood ee xilka loo dooranaya buu ku qasban yahay inay dhammaato taasu waa wax qoran oo codkiinna maanta kuma xidhnee waa wax xusbigu go'aansaday laakiin waxqabadka kalaad doonaysaan baa codkiinnu raacinaya haddii codkiinnu biiqbiiqo iyo haddaa codkiinna qaybqaybisaan dee waxqabadkana waa laydiin qaybqaybin waxba yeedhaan laakiin waa inaa ismuujisaan oo cududdiinna muujisaan waxaan ku darayaa waxaa jira borogaraam socda waa wax qaldan waa waxaan dadka dani ugu jirin dalka dani ugu jirin degaanka dani ugu jirin qabiilka iyo qabyaaladda marka loo kaco aan dani ugu jirin waxa weeyaan waxaa la doonayaa in kaadharhka dadka laga urursado haddii laga ururiyana waa la gubayaa isdhegaysanaynaa kaadharhkiinna duullaan baa lagu yahay dhallinyaradiinna loo soo diraya lacag baa lagu bixinaya waa laydinka urursanaya waa la gubaya waxaa loo gubayaa waxa weeye degmadaas waa kulmiye dadku dhagxaan ha noqday ee codayn dhagxaan baa noqonaysaan haddii la qaato kaadhkiin kulmiye waa markan hadda weeye waa la dhaafayaa golo degaan baad doonaysaan baarlaman baad doonaysaan dhagxantaasa ahaanaysaan waxaan idiin sheegayaa kaadhkiinna ilaaliya urursada dhallinyarada ka qaada wax muqdur yar oo aan macno lahayn qiimihiinna iyo degaankiinna iyo codkiinna iyo dadnimadiinna iyo lumin ilaaliya kaadharhkaa duullaan baa lagu yahay meel kale oo la gala markii la waayo la arkay in xisaabtii ay socoto oo kulmiya helayo waxaa la yidhi degaamada kulmiya aan lacag ku bixin oo kaadharhka urursan kaadharhkaa la ururiyaana kugu soo noqon maayaan
waa la gubaya inaa u diyaar garowdaa weeye gudnimo maalina iyo gobonnimo weligeeda baa kala dooranaysaan gobonnimo weligeeda oo baarlaman iyo golo degaan iyo madaxweynaha kula soo baxdaan iyo gudnimo maalin qayila ayaa kala dooranaysaan oo kaadhkaaga lagu qaato aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa idin salaamaynaa